waxaa raadinayna kaliya xog rasmi ah, xog xaqiiqi ah. waxa la noo sheegay kulli waxa la lahay 100 qof been ma isku raaci karto. hal eray ma isku raaci karaan. hal eray ma isku raaci karaan. marka wax walbo ku saabsan xogta aan helnay Maxamuud ka sheekeen doono. sidoo kale anigana wixii hadal gadaal aan ka dhigi doonaa. marka Maxamuud u wareejinaa wallahi been midin sheegay video aan duuran balkoonka joognaa dhaxanta dhacayso wallahi ma maleysan kartid sababtoo gudaha mugdi waaye nalkiina waa naga halaabay. marka hadda aaraba Maxamuud inaan u wareejiyo waxa ilaah la og yahay as og yahayna anigana as ii sheegay aan ku raacay asiga ka waramaayo. soo dhaw Maxamuud. Soomaaliyeed meel walba joogto dhamaantiin way salaamayaan. horta arintan cirka isku shareereysay dad badan يعني Soomaaliya oo dhanba way ka soo hadashay xogaa waxa waa dhaxan zaid ah jirtay xogaa jaakada iska soo bedelay horta sidoo Ilaahay ila og yahay arinta uga hadlaaya Kamaalna yani waa la hadli karay arinta waxa sameeyay horta anaa sameeyay xiriira waxaan sameeyay yani dadka ayada relative-keeda ina xiriir la sameeyay oo yani raadiyo habeenkii ana seexanin marka Kamaala u bandhigay marka Kamaala waxaan arintan saan loogu hadlayo marka ma adina raadisid information marka waxa dhahay gabar ani yani idahooyso oo dhaariyay oo ani idahooyso yani ma qabo yani mana lay qabo ciyaalna ma dhalin yani gabar waa og tahay cidlama ugu tagaa way dhahay marka danta waxay u qasabtay ina ani raadiyo kaligay marka ani iyo waa badneen ani iyo marka yar kale oo walaalkay Maxamed la dhahay asna waa raadinayay dhinaciisu ka raadinayay marka information wax badan ay istutusnay dad marka Facebook dad ayada u dhadhow Facebook dad mar hore isla hadashay Facebook waa jira dadka dhan waa arkeen mar dad ayada comment ka bixisay dadkaas raadiyay mustaqaaniinaan lahay Ilaahay ma kula og yahay dad ani waxa raadsanay oo mas'uuliyiin marka Ilaahay ma kula og yahay wuxuu dhahay Ilaahay waa ila og yahay hadaa rabtid waa sheegi kartaa yani wax la qarinayo ma aha hani inay wax dhashay ciyaal ay leedahay wax dhan waa jiraan hadana waa ka soo tagay nin kale waxa helay adeer asna la dhahay Ismaaciil Afro soo ii sheegay nin wanaagsan si wanaagsan wax ii fahansiiyay gurigiisa ku soo kortay gurigiisa oo yani ay ku soo aroostay ay ii sheegay aan arintii waxa ila sii noqonayso hurdada waa iga sii tagaysay ma fahantay ilaa hadda ma seexan sidii xalay ilaa hadda marka arintii waa yani arintii meeshii horta xaqiiqada meeshii ka soo baxaysay dadka dhan been hadana walaasheeda la hadlay way ii sheegtay eedo kala jirta ayadana Canada joogto oo ayada habareerteed farxiimiya farxiin la dhahayo maleena farxiimaha habareerteed waa la hadashay adna ana la hadlay farxiya la hadlay waxa la hadlay eedo xumburo in la dhahayo maleena ayada cambaro la hadlay wixii dhan qof yani haduu ciyaalnimada ku yaqaanay xitaa waxa ku dheelayso sheegaya ma fahantay marka wax aqliga galaya la rabaa markii dambe arintii marka saas u ogaaday ee cadaatay Kamaala marka waxaan dhahay niyo horta wallahi waa ka shakiyay ana waxaas dhahay Kamaal arinta misla ogyiin wallahi oo billahi habeena kurbaysna inaan isla ogaa Maxamuud ma waa ogaaday markii isina aniga marka maya ilma dhashay kala xarag ku xiran yahay aniga inaan guulis Maxamuud aqli loo baahan yahay ma sax waaye laakiin hadana waa raadiyay hadana yani dadkii kala family kala waa isoo xiriiriyeen waa isla hadalnay dhowr mar isla hadalnay yani kool dheer waqti dheer waa wada hadalnay wax waa isfahansiinay markii dambe xitaa aan waxa u fikiray xoogaa maskax ahaan ma loo haystaa markii dambe arintii dhan markaa soo ogaaday marka waxaan dhahay niyo Kamaalo saana jirto arinta dhanna waatana hatta adi indhaha istiraysid ma sheegi karo fahme waxa familka hooyada aabaha ku dhaheen adeer iyo dadkii oo YouTube soo la soo fadhiisanayo arintiina saan ay tahay cirka isku shareeraysay arintan fiiri arintii marka Kamaala ku soo wareejiyay Kamaalkii marka waa fahmay Kamaalkii ama kaaga noqotay waay marka ani yani waay isaan u sameeyay oo bilaabay markii uu dhaho ani igu sameeyay waay marka ayadii marka waa la xiriirnay marka arintan waxay tagtay serious ma fahmay dhaar ay tagtay wax walbo yani magac Ilaahay ka weyn dhaar ay tagtay arintii marka xaqiiqadii wixii aan soo ogaaday information-keeda hadda wax ay la sheegi karin
يعني xaqiiqooyinka dhan waxaa jirto wax oo family issue ah oo waliba top secret ah markaas oo ogaad ayadana aan la socodsiiyay ay fahantay markii dambe يعني الحمد لله afkeeda ka qaratay ma fahantay marka kamaalna markaas meeshaas ku qancay marka arinta kamaala u sheegay arintii marka ayada gabadhii afkeeda ku qaratay marka kamaala marka waxaan dhahay arinta ka hadal marka inaa ka hadashid ay sheegtid waaye wixii bayaan yani wixii oo aragtay ilaah kula og yahay صح waa aniga waxaan qarinayn mala sababtoo ah hadda video aan duuban daqiiqadooyin xitaa nus saac marnaba daqiiqadooyin kadib isla markii video cadeynta waan soo fadhiisay wax la qarinayo ma jiro laakiin markii hore qofka adiga xaaskaaga ah haddii isku dhaho aniga ilmo ma dhalin weligii wax ma soo marin waa aamineen صح ilaa qofkan markaa shukaansiisa wejiga muu qoran maxamuud haddana midda kale dadka fahansiinaya jirto marka la dhahayo qofkan yani hiblaayo wasaana ku samaysay yani ma dhihi karo yani adoo qof weyn ayna dhahdina yani ma wanaagsaneen laakiin si wanaagsan wax waa loo sheegi karay laakiin yani waay qofkan hadduu dhihi lahay waxayse babligu soo dhigtay arooska ma qarsaneen nikaaxa ma qarsaneen arintaas shaki waa dhalin kartaa ase xitaa shaki waa ku dhalin kartaa yani taas inaa xisaabta gelisay ahayd qofkan waa shakin karaa cadeen tus wax itus itaabsiyaa jirto cadeen tus waatana cadeen laakiin haddaa dhaho yani qofkan asaa dhalay asigina ku dhahoy ma dhalin yani confuse aa noqonaya ma fahantay marka arintana waxaa fiican markay xeerkan oo kale marayso oo ay marayso itusi oo itaabsi marka ma la rabo inaad dhahdid yani ma loo baahneen marka adna yani waa kuu garaabayaa yani wax yani oo ciyaal qof yani ciyaal dafirayso yani xoogaa waxa noqonaya wax la yaab leh dadka dhan ay la yaabayaan oo qof bini aadan samaynayn kolley wixii ku kalifay anaga ma sheegi karno laakiin xaqiiqada markaas soo ogaanay yani wax laga talaabsan kara maaha wax laga socon kara maaha wax in dadka loo bayaanay u baahanna waaye sidaa la ajligeeda soo fadhiisanay oo arinta sida saxda u jirto oo ani ilaahay ila og yahay ninkana ilaah ula og yahay marka idin la soo gudbinay marka intaas wixii ka dambeeyo marka ani wax la dhihi kara ani ma aqaani marka kamaalay u taalaa horta intaas waxay ka dambeeyey maxamuud dad badanaas la hadlay dad badanaa wax uu cadeeyay ilaa haddana waa isla xiriirina ha aniga laakiin hal qof aan la hadlay hawreerteed maama hawreerteed maamadaas maasha Allah si fiican ay wax walba iigu bayaanisay maamadaas wax walba markay ii sheegtay waxaan xaqiiqsaday marka hore kow aan xaqiiqsaday ilmaha in ay hani dhashay markii aan la tagina kadib oo dhaar iyo kitaab ay isla gaartay waxay ii cadeysay ilmaha in ayada ay dhashay kadib maamada aan weydiiyey sababtoo ay qof ciyaalkiisa ingiriisi ka galay waxa leeyahay qofkan si maskaxiya ma loo haystaa wax ma haysto marka maamadan weydiiyey maamada waxaan leeyahay maxaa ku kalifi karo in ay dafirto ciyaalkeeda maamada waxay dhahday wallahi ani ma ogay dhahday laakiin waxaa huba ay dhahday inay ciyaalka ayada dhashay waan laga yaabaa ay dhahday marar badan ninkaas in ay khilaafkooda badnaado ani si ayaday dhahday way hal been ku daray family qusaysa inay sheegana ma fiicnaan laakiin maamada si ii sheegtay waa aniga arintaas waa gaabsanaa laakiin arinta muhiimadda waxa waay ciyaalka ma dhahay aan hani ninkaas xariga ku xiran ninkaas waa kala tageen ma dhahay wax walba kaas gadaal aska imaana aan xitaa cadeen muu hay taas in as qawwali in ay kala tageen cadeen muu hay laakiin waxaan cadeen u helay in ciyaalka ayada ay dhashay kulley wax walba qoran waa dhaca wax walba adduunka waa laga arkaa dad badan aan arkay dhahayeen wax walba adduunka waa ka arkay nin rag oo uur yeeshtay oo ilmo laga soo jiiday leen la arkaynin saxna way taas wax walba adduunka waa ka dhaca arinta